Hey, jauh. Halkan waa jasiiradda Manarada oo ku taala duleedka Barawe. Jasiiraddan ayaa ah mid taariikh weyn ku leh magaalada Barawe. Aniga iyo dhalinyarada isla soconay ayaa halkan ku nimid anagoo lugeynayno. Halkan ku yaala godad kuwaas oo lagu dabaashto. Dadkaasi ayaa ah kuwo dhowr saacadood ayaa halkan ku sugnayn waana ku dabaalaneynay. Waa meel qurux badan oo aad ugu riyaaqdo marka aad ku sugan tahay halkan inaad ku dabaashato waqti badanna aad jeceshahay inaad ku qaadato. Ugu horeyn dhalinyartan ila socotay oo halkan anagoo lugeynayna imaanay ayaa ka warbixiyay dabaasha halkan iyo sida ay ugu faraxsan yihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatu. Meesha meel walba ay daawanaysiin anigu ah Jariin These Boys. Meesha waa Manarada waa loo imaaday damaashaad waa la baashaalaya maasha Allah. Asxaabteeda dhan waa la imaaday meesha ujeedin. Asxaabtu waa islaam meel walba aad joogtiin adduunkan ay daawanaysiin. waa ujeedin maanta waxaan joognaa Manarada waan baashaaloona damaashaad alxamdulillah bash baraaw imaada baraaw arka baashaal. Assalaamu calaykum warahmatullaahi taala wabarakaatu. meel walba ay daawanaysiin waan salaamay. maanta booqasha xad soo baxay aniga dhalinyaro badan muuqaalka ila soo dhawaaday aada uu faraxsanahay halkan oo Manarada waa meesha imaanay waa qabaysan waa isnadiifin sidoo kale hadda biswa baxramna. Assalaamu calaykum warahmatullaahi الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى ما هذا السكالة وقرن maanta aan soo booqanay jasiiradda Manarada waa meel taariikhi ah runtii oo u baahan tahay waxyaabo badan. runtii meelahaan soo tagnay waxaa ka mid ah meelo waxay leedahay lagu dabaasho oo dalxiiska aad ugu wanaagsan isla markaasna Barawena ay taariikh weyn ku leedahay halkan. runtii waa wax aad iyo aad loogu riyaaqo shacabka Barawe dhammaan dadweynaha Barawe. hadda waxaa ila socday dhalinyaro aad u yaryar oo halkan igala soo qayb qaatay maanta inaan soo booqano. runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay. insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan kale shacabka kale oo jecel inay soo booqdaan runtii aan ugu inay tahay meeshan meel aad u qurux badan oo ay wanaagsan tahay in loo soo dalxiis tago ayna u baahan tahay xoogaa wax yar in maaragtay dadka jooga dibadda oo kale masalan waxaa dad qurbo joog ah oo aad u jecel maalmihii ugu dambeeyay 2 isbuuc ka hor ayaa halkan imaaday. runtii waxaan ku arkay dad qurbo joog ah isla markaasna sidaad horeba ugu daawateen aad aragteen halkan aad ugu riyaaqeen aadna u jeceliin deegaankooda ama dalkooda inay yimaadaan. runtii maanta maalintii labaad ma ahan maalin saddexaad ma ahan mar walba waa imaadaa balse maanta waxaan jeclaystay in aan wax badan aan dadka u sheego. meeshan waa meel aad u fiican waa meel aad u qurux badan qof walba deegaankiisa asaa dhisan karo asagaana samaysan karo. maanta hadda masalan tusaale meelaha aan soo marno kale sidaad u jeedaan meelaha aan soo marnay waxaa ka mid ahaa meesha hadda anaga aan ku dabaalanayno oo aad muuqaalka ka dheehan doontaan. waxa waaye meel qurux badan oo isla markaasna dawaashku macquulo jambalaha iskaga jiraan oo problem taas dhawaato ma lahan jambaladaas laakiin waxay ku fiican tahay dalxiiska. runtii wallahi aad baan ugu riyaaqay runtii markaan arkay dhalinyarada xataa say u jecel yihiin meesha mar walba inay yimaadaan qurbo joogta inay yimaadaan. runtii wallahi waa shay aad u qurux badan. anagana dhalinyar ahaan meesha halkan aan joogno farxad bay inoo tahay inay mar walba dad cusub ay yimaadaan halkan oo soo damaashaan sida caruurta yaryar dhalinyarada. wallahi waa meel qurux badan dadka jooga dalka dibadiisa. horta inta badan Soomaalida waxay u badan yihiin inay deegaankooda ka cararaan bilaa sabab ayagoo ku macneynaya inaysan jirin wax shaqo ah balse deegaankaaga wax kaaga muhiimsan ma lahan. aan isleeyahay aniga fikradeeda ahaan qof walba deegaankiisa ayaa u muhiimsan dalkiisa ayaa u muhiimsan in uu ka qayb qaato horumarka iyo waxyaabaha jiro. waxaan soo aragnay dhibaato badan oo
waalidiinteena ay ka mid yihiin awoowayaasheena dhibaato badan soo arkeen deegaanada ay ku sugnaayeen hase ahaatee dhibaatadaas ayagoo soo arkay ay xaasku guursadeen annaguna galeen anigu xataa hadda aan rajeynayno hadduu ilaahay yiraahdo in aan maaragtay aqal galno ama wax aan samaysano dunida aan rajo weyn ka leenahay ilaahay ha nagu simo inaan dunidan rajada aan ka leenahay aan gaarno hadduu ilaahay yiraahdo runtii ilaahay waxaan ka baryaynaa in dalkeena aad buu u wanaagsan maanta baraawaan ku sugannahay baraawena waa meel qurux badan runtii waqtiyo badan ayaan joogay waxyaabo badanna waa iska jiraan laakiin hase ahaatee waxa ka muhiimsan waxyaabahaas oo idil quruxda magaalada iyo dadka sida ay aadka u jecel yihiin ay aad ugu muhiimsan mar walba in la eego lama eego kaliya waxyaabaha jiro laakiin waxaa la eegaa waxyaabaha dhalinyarta ay jecel yihiin waay maxaa ka mid ah dhalinyarta waxay jecel yihiin in ay samaystaan horumar insha Allah waa la heli doonaa qof walba wuxuu higsanayaa horumar qof walba wuxuu higsanayaa inuu talent noqdo qof talent ah inuu noqdo qof wax qabad leh deegaanka wax u qabto insha Allah waana hagaagi doonaa wax walba aan u dulqaadano duniduna waa sideedu waa samir qofka hadduusan samrin ilaahay ma jeclaana qofka samirka badan ayaa ilaahay mar walba jeclaado ilaahayna ku xiran ayaa mar walba guuleysta runtii ma aragtay ugu dambeyn waxaan baa ku dirayaa dadka deegaanka ka soo jeeda oo aad iyo aad u jecel in ay imaadaan ayagoo jecel inay imaadaan haddana ka walwalsan ay isleeyihiin deegaanka amuusan qurux badnayn amuusan wanaagsaneyn runtii deegaanka aad buu wanaagsan yahay runtii dalxiis baan ku imaanay hadda inta awjeedna alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale si nabad baan ku joognaa si nabadna insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo waan ugu laaban doonaa runtii dadka daawanaya muuqaalkan waxaan ka rajeynayaa inay noo sii shargareeyaan asxaabta kale page-ka iyo channel-kaba in ay maaragtay YouTube-ka ay subscribe inoogu dhiirigeliyaan follow-gana dhanka page-ka ay inoogu dhiirigeliyaan aad ugu mahadsantihiin runtii insha Allah wax walba aad jeceshiin inaan idin soo gudbiyo hadduu Alla yiraahdo waad ku mahadsantihiin